jaamac Ismaaciil Ciide jaamac Shabeel gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga talada dalka haya kulmiye oo maanta shir jirayd ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ganafka ku dhuftay bayaankii ka soo baxay xisbiga kulmiye oo gudida fulintu ee xisbiga kulmiye xilkii iyo xubinnimadii xisbiga ka qaadeen maalintii shalay waxaana uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Somaliland uu isku khilaafsan yihiin xeerka kursiga oo dhawaana ansixiyeen golaha wakiilada waxaana dhaqan galiyay xeerkaasi madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi shalayto waxa baahisay waraaq farxawashi ay ku qoran tahay oo aan xur lahayn oo xisbiga lagaga been abuurtay oo xil aan jirin lagu sheegtay xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigu waxa ninkii loo deertay xildhibaan waabeeyo waa kii galay wadani cidda boo loo doortayna ma jirto kursiguna booskaasina boos la magacaabo maaha waa la magacaabay laguma fadhiisto booska fawdada xisbiga ka dhex socotay ka mid tahay waraaqdaasi cidda saxeexday saasaanay u lahayn wax ictibaar sharciyeeda haba yaraatee siday u qoraydna waxay ahayd si aan ahayn go-aan guddi fulineed si aan ahayn bay u qorayd waxaan jeclahay halka ka caddeeyo taa waxba kusii dheeraan maayo mar hadday tahay farxabashi iyo waxaan xeerka iyo dhaqanka midna ku jirin waxba kusii dheeraan maayo taa waxaan jeclahay halkan inaan ka caddeeyo khilaafka aniga iyo cidda uu lasoo kala dhex galay khilaafkani cidda uu lasoo kala dhex galay xisbiga maaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waana xeerkii kufsiga ee aan ka hadlay waxa ogtiin ilaa maalintii hore laga hadlay madaxweynuhu mar qura buu cadeynin mowqifkiisa mar qura kabuu hadal xeerka waxa la faafintiisu ay soo baxday 1 bishii September ee iminka dhamaatay sidoo sharcigu dhigayna 3 cisho ayaa xeerka lagu faafiyaa markay 3 cisho dhamaadaan xeerkaasi dhaqangal buu noqdaa taa macnaheedu waxa weeye xeerkii kufsiga ee ummaddu ka qaylisay maanta waa dhaqangal inkastoo aan garanin cidda lagu xukumayo haddana maanta waa dhaqangal xeerkaas arbush badobay waraaqdani ahayd maadaama uu dhaqangal yahay xeerku maanta yuu ka hadli bay ahayd macnaheedu waxaa leeyahay xeerka wax kastoo dhacayaba xeerka ilaa la waayayo oo saaxadda laga waayayo kama hadhayo madaxweynena waxaa leeyahay soo jeedinayaa madaxweyne u caddee ummadda mowqifkaaga ku dhiiro maxaad u gabanaysaa maxaad marba u soo diray ugu soo gabanaysaa buul huguriya u caddee mowqifkaaga xeerkani waa xaaraan waa sharci darro dastuurku xadgudub ku yahay diinta islaamku xadgudub ku yahay wax la aqbali karo oo la qaadan karo maaha waxaan idin sheegayaa garyaqaan maxamed xasan jicsen oo ahaa maalintii horeenu ka hadlaynay garyaqaankii ka hadlayay xeerkan meelaha laga keenay iyo dadka waday telefoon baa loogu soo hanjabay 4 nin baa ugu soo hanjabay oo midgaal cad yahay oo Hargeysa jooga ka bayr baa lagu yidhi arrimahayaga maxaa arrimahayaga ku geliyay haddii kale waad ka shalayn doontaa wuu sheegay waxaa ku yidhi ha u joojin wuxuu sameynaya gaalkiiyo waxa la socda ha sameeyaane ha u joojin maalintaasaan fahmay oo gartay loo soo hanjabay garyaqaanka in aan laga hadhin xeerkii inaanay gaala xeerkii ka hadhin la doonayo xeerkii in la fuliyo sidiisa loo fuliyo
waxaan isku haynaa waxa weeye waa diintii islaamka waa shareecadii islaamka ma aha siyaasad xisbiga dhexdiisa ma aha dana gaara ma aha wax kale oo naga dhaxeeya aniga iyo madaxweynuhu ma jiraan waa xeerkaa uu saxeexay ee uu dhaqan geliyey ayaan horena uga hor yimi iminkana aan hortaagna oo aanan ogolayn awooddayda markay dhaafto suuratu nuur iyo madaxweynaha la isku eegaya suuradda uu ku gafay ee uu ku xadgudbay waa suuratu nuur iyo madaxweynaha la isku eegaya balalka iskala soo dhacaan suuratu nuur maaha suurada ku hadlay kari waayo waa suurad ku filan cid kastoo xadgudubta waayo ilaahay hadalkiisii weeye ilaahayna addoon kasta wuu ku filayahay ilaahayna waxaan u sheegayaa ummadda waxaan la wado waxaan xisbiga iyagii loo gelinayo mushkiladda waxaan khilaafka lagu sheegayo hele xisbiga kulmiyaa iskhilaafsan warbaahinta haddaad tihin iminkaba way maqlaysaa xisbi kulmiye laydhaa oo iskhilaafsani ma jira haba yaraatee waa madaxtooyada arrintani madaxtooyaday ka socotaa xeerkaasay kusan leedahay waa diintii islaamka waxaan isku haysanaa qaalalaahu iyo qaala daaquutu ayaanu isku haysanaa madaxtooyadii jamhuuriyadda somalilan waa ayandaro ummaddii dooratay inuu u jideeyo intuu qaalalaahu ka tago qaala daaquutu waa ayandaro geesta kale jaamac ismaaciil cige jaamac shameel waxa uu xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye ugu baaqay in maalinta sabtida ay shir isugu yimaadaan xarunta xisbiga ku leeyahay magaalada hargeysa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inay maalinta sabtida ah ee soo socota haddii allaha weyne aqbalo inay isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ee magaalada hargeysa ay isugu yimaadaan iyaga awoodda leh waa hay-adda u sarraysa xisbiga cid kastoo ku gafta xeerka iyo barnaamijka xisbigana golaha dhexa awood u leh wax ka qabashadeeda sidaa daraaddeed waxaan ugu celinayaa mar labaad hawl culus baa taalla xisbigii la kala diraa la doonaya la burburiyo xilku idinku idi saaran yahay waa inaa maalinta sabtida ah haddii allahu yidhaa ay isugu timaadaan xarunta dhexe ee xisbiga si aad talo uga gaadhaan oo go-aan cad uga qaadataan fawdadan xisbigii iyo dalkaba dhex socotaa wasalaamu calaykum